Cudurka sinusitis-ka oo af-Soomaali loo yaqaan sanbalbalka waxa keena iyo daawadiisa. Muuqaalkaas oo faahfaahsan ayaan rabaa inaan soo gudbiyo asxaabta qaaliga kusoo dhawaada taxniin caafimaadka ahayd la socod wanaagsan. Cudurka loo yaqaano afka Ingiriiska sinusitis-ka oo ah sanbalbalka waa cudur sanka ama sanqadha gudihiisa balbaliyo wuxuuna ka dhashaa wasakhda jawiga, cimilada oo isbedelo oo kale ka dhashtaa, iyo boodhka sigadan uu ka dhashtaa boodhka saa u taqaana, iyo tabardarida difaaca jirka ka jirto. Difaaca jirka immune systemka hadduu hooseeyana wuu ka dhashtaa. Waxaa laga yaabaa daawooyinka qaar inay sabab u noqdaan inay keenaan cudurkan sinusitis-ka loo yaqaano. Cudurka sanboorka ayuu u dhow yahay calaamad ahaan xagga xasaasiyadda, cudurka sanboorka ayuu u dhow yahay, laakiin sanboorku wuxuu wataa hindhiso badan. Sinusitis sanbalbalka calaamadihiisa uu leeyahay waxaa ka mid ah hargab daran, madax xanuun, sanka inuu xirmo, sanka inuu ka buuxsamo oo aad ka dareento culays. Sidoo kale waxaa looga hortagi karaa in si dabiici ah waxaa looga hortagi karaa qofka inuu sanka u dhigto qaaca biyaha xoogaa kulul oo kasoo baxayo weel sida jalmada oo kale ah. Boqaar waxaa lahaa qaaca biyaha kasoo baxaya, biyaha markii la karkarinayo sida shaaha oo kale uumibaxa ay sameynayaan ayaa la yidhahdaa boqaarka. Qaaca biyaha kulul aad buu ugu roon yahay inuu kala furfuro. Sidoo kale qofka inuu ku qubeysto biyo kulul, sidoo kale inuu cabo sanjabiil iyo waxyaalaha kulkulul. Sidoo kale basbaaska iyo toonka iyagana way furaan xirnaanta sanka. Waxaa kaloo qofka uu adeegsan karaa biyo cusbo ku jirto oo sanka uu ku buufinayo. Taasi sanka waxay ka ilaalinaysaa inuu qalayl ahaado. Sidaas ayaa looga hortagi karaa cudurkaasito sinusitis-ka oo loo yaqaano sanka inuu ku balbalo. Waxaa kaloo la ogaaday saliid saytuunta haddaad ku dhibciso sankaaga maalin kasta 3 jeer wax weyn ayay u taraysaa. Taasi waa qaabka dabiiciga ah oo lagu daaweyn karo cudurka sinusitis-ka. Daawooyin kiimikaal way jiraan oo farmashiyeyaasha ayaad ka heli kartaa, laakiin waxaa aad u fiican qaab dabiici ah inaad u daaweyso. Muuqaalkan halkaas ayuu ogyahay. Waxaan leeyahay waxaynu baranay video xigo. Assalaamu calaykum.